السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته soo dhawaada saaxiibada qiimaha badan ku xiran janaalkan walaalaha family waa markale muuqaal hor leh hadaba muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa dabcan musalsalka walaalaha xalqadiisii u dambeysay ee 61aad faaleeda oo dhameystiran xalqada ayaa ka bilaabanaysa halkii naga dhamaatay isla xalqadii tan ku horeysay kadib markii wadaadii siifkii ahayd ay u timaaday Cumar iyo Asiye isla markaana ay ka dalbatay inay la joogi karto Cumar ayaa soo dhaweynayo wuxuu ku dhahayaa dabcan soo dhawow wax dhibaato ma aragno mar walibana sidaan ayaan kusoo dhaweynaa oo kale isla markaana waxay dhahaysaa waayo waad maasantahay isla markaana siifkii boorsada intuu ka qaada ayay soo galaysaa iyaduna markaas kadib Asiye ayaa ku dhahaysa ma gaajeysan tahay cunto ma ku keena isla markaana iyaduna waxay dhahaysaa miimi hadda wax gaaja ima hayso Cumar ayaa xaaladeeda ka wareysanaya wuxuuna ku dhahayaa ma waxay soo dagaashan wiilkaaga maxaa dhacay ayuu ku dhahayaa Cumar ninkii lagu magacaabayay iyaduna waxay dhahaysaa ma doonayo mar kale inaan arko iyaguna ogeynayaan iska soo tagay waxaana rabaa halka inaan ku noolaado sidoo kale waxay ku dhahaysaa lacagta wax walba ay bedeshaa sidoo kale qiimo ma yeelanaysa markii da'daadu sii weynaato marka waxaan jeclaysan in idinka idinla joogo Cumar oo ay dhahaysaa Cumarna wuxuu dhahayaa waa yahay halkaas aynu ku sheekaysan doonaan muddo hadaba sidoo kale muuqaalka xigta waxaan arkaynaa gabadha afraad lagu magacaabayo oo idin sheegnay in xalqadan fafagteedu badan doonto ayaa waxay u imanaysaa odayga Orhaan ahaa isla markaana waxay ku dhahaysaa maxaad muujisata maxaa kugu dhacay isaguna wuxuu ku dhahay hooyadaada ayaan isku dhacnay ayaduna waxay dhahaysaa wax dhibaato ah male way ooyisay hooyadeeda waan arkay inaan isku dhacday waan ogaaday waxaad samaysaa hooyadeeda intaad ubax u soo gad ubaxay taxaysa aniga ku sheegayee raali gali isla markaana asagana fikradaas uu ogolaanayaa muuqaalka xigana waxaan arkaynaa ninkii Axmed Ilmaaz oo u yimaado hooyadiisa isla markaana wuxuu weydiinayaa waxa halkan ka qabanayso markaas kadib Cumar ayuu ka dalbanayaa inuu la hadli karo isla markaana Axmed Ilmaaz hooyadiisa ayuu la hadlayaa wadaaduna waxay ku dhahaysaa ma doonay wajigaaga mar dambe inaan arko waan ogaaday waxa aad xaaskaaga sameey rabteen asaguna wuxuu dhahay hooyo ana waxa maana sameey rabin waxaan la yaabna qaadka Cumar difaacaysid iyo Cumar wax walba u sameynaysid iyo maalkaaga xitaa inaad uga tagaysid isla markaana waxay dhahaysaa ma hooyadaada ayaad lacag iyo maal ku doorsatay ma idil rabtay maxaa aqligay ku sameey rabtay ama maskaxdeeda kiniinada ay siinaysaa maxay ahaayeen isla markaana waxay ku dhahaysaa idhaaf hadda wajigaaga inaan arko ma doonayo waxaadna u tagtaa xaaskaaga Axmed Ilmaazna aad ayuu uga murgoonayay in hooyadiisa ogaatay arrinkii isla markaana wadaadda siifkii ah Cumar ay la joog doontaa oo halkaas ay ku nagaan doontaa siifkii Axmed Ilmaazna oo iska baxaya intuu wadada sii socdayna ama intuu guriga ka soo baxay Cumar ay wada hadlayaan markaas kadib Axmed Ilmaaz wuxuu dhahayaa aniga ayaa garanaya hooyada aqligaygu isbedelaya ballan waayo halkan waan ka kaxayn doonaa ma sii joogi doonto muuqaalka xiina waxaan arkaynaa Cumar iyo sidoo kale Cumar soo degay rabay wadaadda siifkii ahayd oo lacagteeda caruurta ku qurxinaysa ama lacag ay leedahay jeeb ka soo saartay ay ka soo iibsadeen qurux badan ay ku karsadeen ay ahayd markaas kadib Cumar ayaa soo degay si wada jirana way u quraacanayaan muuqaalka xiga halkan arkayno qoftii Shanguul ahayd ee Xilmiye oo wada fadhiya isla markaana Xilmiye la talinaysa Shanguul waxay ku dhahaysaa odayga Orhaan la hadalo sidee tahay ku dhe adiyo goonulamada heshiiseen ku dhe yacni odayga wareysa ay ku dhahaysaa Xilmiye way waaleysaayo inkastoo in waalinde laakiin waxay ku leedahay Orhaan xaridiisa ugu isla markaana fariin qoraal iyo qoraysa Shanguul waxaan dhahaysaa Orhaan sidee tahay ma fiican tahay ilaa hadda goonul ma isku dhacsantiin ma kala tagaysiin waqtigaasna mobilka Orhaan waxa gacanta ku hayay gabadhii Afra ahayd ee gacanta ku haysay isla markaana qoraal ay soo qoraysaa waxa dhahaysaa aniga waan fiicanahay iyadoo Orhaan jilaysa waxayna dhahaysaa waan fiicanahay waxayna ila tahay in goonul kala tagaynaa ee balbaritoole hotelka noocaas ay ugu macaash ahaan Shanguul way waalinaysaa farxaysa waxa dhahaysaa Orhaan baa casha iga wacay halkaas ay tumanaysaa laakiin sama ogo waxaan qorso loo degay inuu yahay dhanka kale goonul iyo ninkii Orhaan ahaa way heshiiyeen ay tahay muuqaalka xigana waxaan arkaynaa ninkii beerkii ahaa oo la hadlayo toolga isla markaana qasqasaadaya isla markaana dhibaatooyin cusub ayuu abuurayaa ayagoo wada murmaya waxa imanaysa qoftii ay bika ahayd beerkayaan dhahaya waad khiyaantay Soomaa kan ayaad igu khiyaantay Soomaa aha hadaba Uljaan ayaa ku dhahaya xadkaaga ku eko qoftaan walaashay isla markaana beerku wuxuu dhahayaa Uljaan aan soo dhaxgalin aniga waa la khiyaamay lama socod walaashaada waxay igu khiyaantay oo kale ninkan toolga ay igu khiyaantay markaas kadib ay bika waxay dhahaysaa maskaxdaada ayaad weydiiyay war dhakhtar tag si aad aqligaagu u soo laabto wad xanuunsanaysaa muuqaalka xigana waxaan arkaynaa Asiye iyo sidoo kale doorkooda hadlaya isla markaana xaaladda ka wareysanaya hadalladii caanka ah hadda koorkooda hadii jireen bay ku wada hadlayaan markaas kadibna Uljaan ayaa u imanayo isla markaana macallin Buraak ayaa saddexdooda u imanayo wuxuuna ku dhahayaa ninkaas waxa lagu magacaabaa Axmed Ilmaaz waa shariika cusub ama ninka iskari iskuulkan saa u ogaada
ninkii urjaanaha ayaa naxaya markuu magacaas maqlo Axmed Yilmaz sababtoo wax soo xasuustay hadda koor Cumar markuu ku dhahay Axmed Yilmaz aabahay magaciisa waaye haddaba markaas kadibna Uljaan wuxuu sida u dhaqsiyaha badan ula hadli doonaa Durukiyaasi wuxuuna ku dhahayaa ninkan mar baad magaciisa Axmed Yilmaz yahay way iska caddahay in uu yahay Cumar aabihiisa sababtoo ah Cumar aabihi waxa la dhahay Axmed Yilmaz isla markaana asiga ku dhahaysa Uljaan maxaa ka qaldan Axmed Yilmaz magaalada uu ka tambadan yahay laakiinse ugu dambeyntii way ogolaanayaan arrinkaasi Duruk ayaan fikir soo jeedinaya wuxuuna dhahayaa waa in aan DNA ga baadhnaa si aan u ogaano in ay walaal inuu aabihi ya Cumar aabihi ninkan inuu yahay laakiinse asiga ayada iyaga naxaysa arrinkaas waxayna dhahaysaa Sarbi Yasmin iyo Cumar Moolaal hadda kadibna iyagoo hadalkoodii wata waxaa iman doonaba ninkii lagu magacaabayay Cumar wajigooda inuu ka dareemaya waxa dhacay laakiinse Duruk ayaa difaaci doona wuxuuna dhahayaa waxaan ku mashquulsanayn beerkii oo ay bikee xoogaa xumeeyay ama yacni beerkii ay bikee seer dagaal arrinkooda aan ku mashquulsanayn si kale wajiga anagu muun isku bedelin ee waasaas markaas kadib waxay wada go'aansanayaan in ay sameeyaan dabcan DNA ga inay baaraan ay isku raaci doonaan halka muuqaalka xigaan arkayna qoftii nabahada ahayd oo almiita ku jirtay isla markaana ninka waxa uu iman doonaa Axmed Yilmaz halkaas ay labadooduna ku wada heshiinayaan waxayna ku wada heshiinayaan meeshan cusub iibsatay ama hotelka cusub iibsatay inay ka wada noqdaan shariik ama ay share ku wada yeeshaan ayna kala qaybsadaan sidoo kale shaqooyin kalena ay dhaxmarto nabahadna arrinkaasi way ogolaanaysaa oo bandhiga uu soo bandhigay Axmed Yilmaz waa mid ogolaanaysa oo ku farxaysa Axmed Yilmaz wuxuu soo bandhigay sheerkiisaba aad ugu farxaysa halka muuqaalka xigaan arkayno ninkii Cumar iyo Sarbi oo istagaalaya isla markaana Suusay soo kala dhaxgalaysa Suusay iyo Cumar halkaas isku wareysanayaan ay ahayd macnaheega gaar inta isla baxaan Cumar Suusay wuxuu ku dhahayaa Sarbi maxaad ka qabanaysay habeenkii u dambeeyna maxaad kala soo cashaysay saan horey ku sheegnay Suusay waxay dhahaysaa adiga Leela maxaad ka qabanaysay se Leela adigoo og inaan nacabahay maxaad la soo cashaysay ana sidoo kale ayaan sameeyo qofaad nacabta ayaan la soo cashaysay si aad u dareentid waxaan dareemay Cumar wuxuu ku dhahay waxaan sameynaysid qalad waaye xitaa dad waxaan ugu sameynaysid sababta ilaahiisa maxay ahayd halkaasi ayagoo xanaaqsan ay ku kala tagi doonaan muuqaalka xiin waxa arkayna dhamaan ardayda oo fasalka soo galay sidoo kale gabadha Yasmin waxay la fadhiisanaysaa beerka waxay la tahay inay ka xanaajirta IBK sidoo kale Sarbi ayaa ku dhahay booskan aniga ayaa laakiinse waxay ku dhahaysaa waan fadhiyaa hadda Soomaha Sarbina wuxuu la fadhiisan doonaa qoftii Suusay ahayd ayuu la fadhiisan doonaa sawirkan hadii xasuustiin waa sawirna 10 cisho ka hor in sheegnay waxaan wadiyay markii hore in xalqada 60 dhacayso laakiinse macluumaadkan xalqada 61 ayuu dhacay ayay bahay Soomaha waati aan ka socono macluumaadka soo galaysa waxaan u qaybinaysaa team ama 3 qof ay u qaybinaysaa waxaan dhahaysaa Yasmin Duruk ayaa dhahaya macallin Yasmin iyo Uljaan iyo isku saf noqdaan ama isku koox noqdaan laakiinse يعني way ogolaanaysaa qofta Yasmin lagu magacaabo laakiin waxa diidaya ninka lagu magacaabo Sarbi ayaa diidaya isla markaana macluumaad ay go'aansanaysaa in saddex u qaybso waxayna dhahaysaa Duruk Aasiya iyo Uljaan qaybahadan sidoo kale Leela Suusay iyo sidoo kale Cumar Hasax Cumar isku saf noqdaan sidoo kale waxa isku saf noqon doona Tolga IBK iyo qofkii saddexaad uu ahaa qofkii saddexaad waxaan filayaa inuu yahay Aframi ahayd adii qofka afraad adii sax Afra ay ahayd aan filayaa inkastoo Afra ay la joogtay beerkii iyo laakiinse Tolga iyo IBK waxa saddexaynaya qof saddexaad iyo saddexaynaya qofkaas qofku yahay ma sheegi kari dhan kale waxaan arkaynaa Caakif iyo Suuzaan oo wada fadhiya isla markaan waxay daawanayeen film musalsalka ATV ka socdo Beergun ishigi lagu magacaabo ay daawanayeen isla markaan Caakif iyo Suuzaan way heshiyeen gurigoodana way fadhiyeen laakiinse qoftina hadeeda fariin soo diray waxaan ku dhaaysaa Suuzaan oo kugu soo socda arrin muhiim ah ku sheegay laakiinse Suuzaan fariintaas ma aragto Caakif ay iskala sii baashaalaysaa ay ahayd oo Caakif ay xilligaas wada fadhiyeen isla markiina sida uu dhaqsiyaha badan waxa iman doonto qoftiina mahad lagu magacaabay waxaana ku dhaayay halkan maxaa ka wada qabanaysiin Suuzaan wadiga badan ka qaadina Caakif gurigan soo gelinayna maxay tahay sharaf xumadani isla markaana Suuzaan waxay dhahaysaa guriga aniga ayaa iskala Soomaha iiga nabad ayaa dhahaysaa sorry guriga aniga ayaa iskala Soomaha iiga baxa Suuzaan iyo Caakifna sidaas ayaa lagu soo buriyay gurigan sidaas ayaa lagu soo buriyay Suuzaan waxay dhahaysaa Caakif oo markale ayaa gubtay oo markale ayaa isaameysay dhibaatada ay saameysay ayaa dhahaysaa balan waaye ay dhahaysaa waaye mid qaldan waaye camal ay dhahaysaa laakiinse Suuzaan iyo Caakif waa kuwa wada joogay isla markaana waxay imanayaan Shanguul waxayna ka dalbanayaan caawimaad iyo sidoo kale inay la joogto caawa isla markaana seefkii islaantii lagu magacaabay Suuzaan halkaas ay ku kulmayeen Suuzaan waxay soo xasuusanaysaa dhibaatooyinkii seefkii u geysay ay soo xasuusanaysaa iyo hadda koor markii uurka lahayd in wadaadii seefkii ay ku tiri ma doonayo ilmahan inuu Axmed ogaado sidoo kale Axmed ma ogaanayo sidoo kale ilmahan adiga ayaa qaadanaya ama adiga ayaa kursanaya lagama yaabo inuu nagu soo biiro reerka anaga adii Axmed lagama yaabo inay isguursatiin
Suuzaanna waxaan moodaynay inay aad ugu xanaaqsan tahay wadaadda Sefkiya laakiinse ilama ahan inay xanaaqsan tahay waa tahay muuqaalka xigana waxaa arkaynaa Axmed Ilmaaz iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa wada cashaynaya waxayna ku wada waramayeen wadaadda Sefkiya sababta u soo laaban laaday laakiinse Nabhad ayaa fariin u soo diraysa isla markaana sidoo ruqsiya bin Axmed Ilmaaz wuxuu aadayaa Nabhad ayuu aadayaa oo ballan wada lahaayeen ama cashay wada lahaayeen Nabhadna xilligaas way isdiyaarinaysay oo way labisanaysay ayay ahayd sidaas ayay ku tagayaan muuqaalka xigana waxaa arkaynaa Caakif Suuzaan Shenguul Cumar Asiye Doruk Uljaan IBK oo aad u wada cashaynaya ama casho qurux badan wada samaystay ama si wada jira xilligaas u wada cashaynaya ayaan arkaynaa sidoo kale wadaadda Sefkiya ayaa xoogaa su'aalo weydiin doonta Caakif insha Allah waxaan rajaynaynaa muuqaalada xiga in aan faalo dhammaystiran idinka keenno arrinkaas waa tahay halka muuqaalka xigana arkayno wadaadii Sefkiya ahayd oo guriga gashay isla markaana Suuzaan ay ka soo baxayso dhaayso moolkayga soo iloobay Suuzaan iyo Sefkiya halkaas ay caadi ugu wada kulmayaan ama caadi ay ugu wada sheekeysanayaan noloshii hore aad moodaysid inay ka wada sheekeysanayaan laakiin runta waxay tahay Suuzaan waxay ku dhahaysaa halkan maxaa ka qabanaysaa maxay Axmed Ilmaaz kugu sameeyeen Sefkiya waxay dhahaysaa Axmed Ilmaaz xaaskiisa waxay rabeen inay aqligaaga ama kiniina qaldan inay siiyaan bay rabeen Suuzaan way naxaysaa waxay dhahaysaa wiilkaaga waxa miyay ka suurtooda markaas kadib Suuzaan waxay ku dhahaysaa waayo Cumar maad u sheegaysaa in Axmed Ilmaaz uu yahay aabii maad u sheegi doontaa Sefkiya waxay dhahaysaa meel lagama yaabo inaan u sheego arrinkan uma sheegayay sababtoo Axmed Ilmaaz ma aqbalayo inuu yahay wiilkiisa halka muuqaalka xigan arkayno Doruk oo sawir helay sawirkaas oo ah hooyadii iyo Axmed Ilmaaz oo wada jooga sawir ayuu helaya oo Instagram post aan filayaa inuu arkay isla markaana Asiye iyo Uldaan ay soo dhaqsay badan hadlay wuxuuna dhahayaa waa fursada kaliya in Axmed Ilmaaz dhiiggiisa ku heli karo ama DNA-giisa aan sidoo dhaqsay badan ugu heli karo isla markaana iyagoo wada socda waxay batagayaan Axmed Ilmaaz iyo Nabhad meesha ku kulmayeen markaas kadib Nabhad waxay dhahaysaa cashadeena oo dhamaatay wiilkii Doruk halkan maxaa ka qabanaysaa markaas kadibna Cumar asagana shaqadiisa ayuu imaaday ahayd Cumar ayaa mashquulinayaan Uldaan wuxuu soo qaadayaa waqti xaadirkaasi koobkii Axmed Ilmaaz wax ku cabay soo qaadayaa si uu DNA-giisa soo helo Doruk oo ay bac loogu talagalayna way ku ridiyaan sidaas ayaan ku soo qaadanaya ahayd Uldaan wuu soo hoynayaa dhakhtarkan wuxuu ku dhahay habeen dambe ayaan idin doonaa halka muuqaalka xigana oo arkayna wada shaqayntii ka dhaxaysay Leela Suuse iyo Cumar isla markaana Cumar wuxuu aad iyo aad uga masarsiin doonaa Suuseen way iska bixi doontaa xaqiiqad miya la dhaaniyo ahaanteeda xaqiiqadii aan aqaana macni iskuulka meel kamid ah ay fadhiisanaysaa isla markaana ninka saarbaa u imanaya wuxuu dhahay waan arkay wad ooyeysaa maxaa la ooyeysaa kasoo fikir inta daboor wareegi lahayd Cumarkan ama doqonkan Cumar lagu magacaabo inta daboor wareegi lahayd waxaa ku dhaanta adigoo iska hara aad qurux badanta Cumar maxaad ka daba socotaa wuxuu rabaa inuu kala geeyo Suuse iyo Cumar ayuu rabaa inuu kala geeyo bal waan aragnaa sheekaasna halkay ku dambayso haddaba Suuzaan waxay dib u laba habaysanaysaa gurigeedii hore isla markaana waxay dalbanaysaa inay mar labaad kaleesato oo gurigoodii hore ay ku laabato isla markaana Caakif ayaa markaan weheli doona oo Caakif ayaa la nool markaas kadibna Suuzaan iyo Caakif gurigaas ay hadda kadib ku noolaanayaan waana loo ogolaaday inay wada joogaan hadaba muuqaalka xiga waxaan arkaynaa macallinkii Buraak ahaa oo Cumar la hadlaya isagoo arday babaaraya meesha maraysa isla markaana wuxuu ku dhahayaa Cumar warqadan waa inaad iigu geysaa Saarbi iyo Yaasmiin sababtoo aabbahood iskale Cumar warqada xaggeeda dambe ayuu arkayaa wuxuuna arkayaa warqadeena ku qorantay Axmed Ilmaaz halkaas ayuu kaga shakinayaa Axmed Ilmaaz in uu yahay aabihiisa aad ayuuna u naxayaa aad ayuuna u murugoonayaa markaas kadib arrinka dhan wuxuu u sheegayaa Uljaan iyo sidoo kale Asiye iyo wada jooga laakiinse IBK waxay dhahaysaa Cumar waa laga yaabaa waa sax ay dhahaysaa Sefkiya maxay waxaan oo dhan kugu sameynaysaa ama Sefkiya maxay ku maalkaas ku sii rabtay haddaba Cumar maalkaas inay sii rabto wuxuu ku soo ogaaday markii uu warqad u geenayay Yaasmiin iyo sidoo kale Saarbi Yaasmiin iyo Saarbi ayaa dhahay ayeedanada maxaad ku sameysay maad sixirtay waxay rabtay in ay dhaxal ahaan kaaga tagto lacagtaanadii Cumar rasuul u socdo wuxuu imanayaa Uljaan IBK Asiye Doruk isla markaana IBK ayaa waxay dhahaysaa Cumarow Sefkiya maxay waxaas oo dhan kugu sameynaysaa soo lagama yaabo inay ku dhowdahay soo lagama yaabo inay qof aad kugu dhow tahay sababtoo ah maalkeeda iyo dhaxalkeeda ayay rabtay inay ku siiso oo markay dhimato dhaxal ahaan ay rabtay maalkeeda iyo wax walba inay ku siiso Cumar halkaas shaki weyn ayaa ka beermaya laakiinse Asiye iyo Doruk ay dadkina waxay ku dhahayaan soo lagama yaabo Sefkiya aad ku jeceshahay wax dhibaato ma jiro markaas kadib muuqaalka xig waxaan arkaynaa qoftii Shenguulahayd oo aad soo galabisanaysa dhar cusub raadsanaysa maadaama Orhaan la kulmayso waxaana noo cadaatay xalqadan in ay tahay loo maalin ama maalin kaliya in ay tahay noo cadaatay
oo xalqadan kama badnaba maalin iyo 2 maalin sababtoo ah xalqada waxaan soo gaarnay dhamaadkeeda in ku soo dhawaanay Shingula bilowgeedii ayaa loo sheegay ama bilowgeedii ayaan aragnay iyadoo dhahaysa Orhan ayaan kulmaynaa dhamaadkeedana way kulmayaan soo marka xalqada maalin ama 2 maalin kama duwana xalqada way ka duwan tahay markaas kadib haddana soo laaban meeshii aan soconay IBK waxay ku dhahaysaa Cumar hooyadaada weydiiyay ninkan inuu yahay aabahaaga iyo in kale Axmed Ilmaas inuu yahay aabahaaga in kale muuqaal kale waxaan arkaynaa Sheewal oo u yeedhay qoftii ay la ahayd oo hotelkan hadda ka hor ayaa laga buriyay ay ahayd oo hadda ka hor qoftiina haaday ayaa tiri meeshan hotelkayga ma doonay inaan idinku arko markaana sida caadada ahayd iyadoo rabtay inay buriso ayaa waxay dhahaysaa Sheewal marka laga yaabo inaan buriso sababtoo ah aniga waxaan ahay ninka aad sheerka wadaagtiin xaaskiisa yahay Axmed Ilmaas ayaa soo galaya nabahadna halkaas ayay ku moral tabaysaa oo niyadeeda ku tabaysaa aad in oga naxaysaa markii ogaatay Sheewal inay tahay Axmed Ilmaas xaaskiisa sababtoo Axmed Ilmaas uu isku waday marka hore qoftan muuqaalka xigana waxaan arkaynaa IBK oo la iska diraayo waxaana diraya Duruki ayaa iska diray waxay ku dhahayaan shaqo muhiim ayaa leenahay aniga Uljaan iyo Asiye IBK iska soco Cumar hooyadiisa ayuu u tagay si uu u soo weydiiyo ninkan Axmed Ilmaas lagu magacaabay inuu yahay aabihiisa iyo in kale si uu u soo weydiiyay ayaa wuxuu u tagay qoftii Suuzaan ahayd ayuu u tagay halka muuqaalka xigaan arkayna gabadha afraad lagu magacaabayo hooyadeeda la hadlaysa markii iskuulka ka soo baxday kadib waxayna ku dhahaysaa hooyo aniga ay dalbay meesha tagaysin hotelka tagaysin waxayna geynaysaa hotelkii ay ku ballamisay qoftii Shingul ahayd ayay ku dhahaysaa hotelkaas waa inaad aadin afraad hadlaysana waxay dhahaysaa ximaasadu hadda ay bilaabanaysaa ayaa wax walba hadda ay bilaabanaysaa guunulo ka aqbalaysaa waxay dhahaysaa waa yahay gabadheedii isla hotelkaasi aan sheegtay ayaan tagi doonaa wax dhibaato ka cabsan isla markaana waxaan arkaynaa muuqaalka xiga Suuzaan iyo Caakif sidoo kale cagahooda biyo dhigtay oo nasanaya ayagoona ku faraxsan noloshan cusub ay heleen Caakifna fursad ayaba u tahay noloshan cusub ay soo dageen sababtoo ah marka hore ma haysanba guri uu galo laakiinse hadda Suuzaantu ku riyoon jiray ayuu bala joogaa Soomaaliya inkastoo marar badan qoftan la joogo weligiiba la joogi jiray laakiinse noloshii adkeyd xoogaa uu ka soo baxo markaan Suuzaan ayuu la nool yahay isla markaana waxa albaabka soo gargaraaci doona Cumar Suuzaan ayana soo kacaysa markaas kadib Cumar ayaa dhahaya waxaan rabay inaan arrin muhiim ah kala hadlo Suuzaan waxay dhahaysaa waa yahay soo gal aniga Caakif ayaa joogna Cumar asagoo soo gal raba guriga ayuu cagtiisa istaajinaya wuxuuna ku dhahayaa ma doonayo Caakif arrinkan inuu maqlay meel kale ayaan ku hadlaynaa markaas kadib waxay dhahaysaa waa yahay daaradda ayaan ku hadlaynaa wax dhibaato ma jirto daaradda ayayna wada fadhiisan doonaan wada hadalkoodii ayaa waqtigaasi bilaaban doona wuxuuna ku dhahayaa waad u jeedaa wadaadda seefka lagu magacaabo waxyaalo badan ay sameysay sidoo kale maanta waxaan soo maqlay in dhaxalkeeda iga tagi rabtay marka waxaan rabaa hal arrin inaan ku weydiiyo sawid ognahay bahdo koor waxaad ii sheegtay in aabahay lagu magacaabo Axmed Ilmaas maantana waxaan ag taagan in lagu magacaabo Axmed Ilmaas ninkan aabahayga miyaa haddaba markaas kadib kaamirada ayaaba laga leexinayaa iyadoo wax jawaabna la siinin kaamirada ayaa toosna looga leexinayaa halka muuqaalka xigaan arkayno Uljaan Asiye iyo Duruki ayaguna jawaabtii wada sugaya jawaabtii DNA-ga isla markaana Asiye ayaa dhahaysaa aniga ma doonayo warqada inaan furo ama jawaabtii inaan furo Durukina wuxuu dhahayaa aniga xitaa waan ka cabsanaya ma doonayo inaan furo laakiinse haddii jawaabtu ay noqoto 99.9 ama yacni 99% haddii noqoto ninkaas waa aabihiisa saa ula socda markaas kadib Uljaan ayaa furaya Asiyana halkaas ay ka ogaanaysaa jawaabtiina 99 tahay muusigeero qira ayaa lagu tuurayaa maadaama Axmed Ilmaas uu yahay Cumar aabihiisa kuwan ay ogaadeen markaas kadib Asiye dhahaysa way hadda maxaan sameynaa Cumar ma u sheegaa Cumar walaalkayga weeye waana weli ayaa ila dhalay oo aabahayga ah laga yaabo inuu ninka noqdo aabihiisa laakiinse si kasta ahaataba xitaa duu aabihiisa noqdo walaalkayga Cumar mar walibana waxaan noqon doonaa ama labadeenaduba aan nahay weli caruurtiisa oo Asiye aad ay u murugoonaysaa ayay ahayd waatahay muuqaalkii waxaan arkaynaa qoftii Shingul ayadoo uurkeeda salaaxaysa isla markaana waxay u socotay dhankaas iyo odayga Orhan ahaa waxayna tagaysaa maqaayad looga wacay maqaayada saada u istaagtana waxayba arkaysaa odayga Orhan ahaa oo dhunkanaya wada qoftii goonu lahayd runtii ilmaha inuu ka soo dhaco wax yar ayay u dhawaatay ayay ahayd markaas kadibna Shingul ayadoo aad u naxsan ayay iska laabanaysaa qoftii afraahid ayay istaajinaysaa waxay ku dhahaysaa halkan maxaad ka qabatay Shingul halkaas ay ku ogaanaysaa waxaan inay ahaayeen qorshe loo tagay oo gabadhan yar lagu magacaabo afraa ay u degtay halkaas ay ku ogaanaysaa isla markaana
qoftan afraad lagu magacaabo waxay ku dhahaysaa hooyaday yacni hooyaday iyo ninkeedaba ay orhaan ka fogow bilaa sharaf ayaa tahay dadka isqabaha isku day inaa kala geeside ayaduna waxay dhahaysaa shinguul ah adiga runtii waxaad u eg tahay ama waxaad shaabahdaa hooyadaada sababta adiga hooyadaada isku dhaqanayaa tihiin waxaana qorshaada adiga ii degiso maaha halka muuqaalka xigaan arkayno asi oo gurigoodii yarad maadaama mooradii timid sidoo kale shinguul waxaa la joogay waqtigaas ninkii ulgaanaha ayaa la joogay wuxuuna ku dhacayaa cumar uu soo socda sidoo kale seefkii xaafadaanada ii joogtaa ama gurigaanagii seefkii ku jirtaa gabadhii email ahaydna gurigaanagii ku jirtaa cumar u sheeg in axmed ilmaas inuu yahay aabihii cumar oo dedegaya isla waqti xaadirkaa soo galaya wuxuuna dhahayaa asiya ii warsee tahay waxaan ka imaaday suusan ayaan ka imaado waxaan rabay inaan soo weydiiyo axmed ilmaas inuu yahay aabahayga isla markaasna asiya oo gacanta ku haystay warqadii DNA-ga ama jawaabtii DNA-ga xagga dambe ay geenaysaa gacmeeda xagga dambe ay marinaysaa waxayna waqtigaas diyaar u ahayd inay u sheegto axmed ilmaas inuu yahay aabihiisa markaas kadib wuxuu dhahayaa suusan waxay ii sheegtay ninka axmed ilmaas lagu magacaabay in uusan ahayn aabahayga ninkaasna aabahayga ma aha maxay farxad ii dhammaatay hab ayuuba siinayaa asiyana waxay leedahay waqtigaas inay go-aansatayba inaysan u sheeginba cumar wax waliba cumarna wuxuu moodayaa axmed ilmaas inuusan ahayn aabihii oo axmed ilmaas inuu ninkaa yahay xalqadan halka ay ku dhammaanaysaa runtii xalqada inteeda dambe aad ayaa naga xanaaqay sababtoo adee dhaqankii hore dib u soo celin rabaan ee ah in wax la qarqariyo iyo labadii cusub dambaysa waan ka raysanaa ay ahayd in wax la qarqariyo haddana waan fahmi waayey marka faaladan maanta deg deg ay gu jiray halkaas ay ku hagtay faaladan la soco muuqaalada xiga gooska sidoo kale macluumaadada xiga waan ku saaxiibkiina Khalid muuqaalka like share subscribe channelka wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh